wararka ka imanaya dalka Yemen ayaa sheegaya in tiro dad ah ay ku dhinteen dagaal xoogan oo ka dhacay agagaarka magaalada degada leh ee ay Xuutiyiintu haystaan ee Horideed. Ilwareedyo laga helayo xarumaha caafimaadka ayaa laga soo xigtay in dagaalkani lagu dilay in ka badan 70 ka tirsan mucaaradka Xuutiyiinta. Waxay sidoo kale ilwareedyada caafimaad ay inta ku darayaan in ciidamada gacan saar kale leh dawladda ay ka dhinteen 12 qof. Isku dhacyadan ayaa ka dambeeyay kadib markii ay guul dareysteen dadaaladii ay waday qaramada midoobay ee lagu doonayay in la isugu keeno dhinacyada Yemen ku dagaalamaya. wadahadallada nabadeed ee Yemen ayaa lagu wadayaa in ay magaalada Geneva ka bilaabmaan maalmo ka hor. Waxaa mar walba laga cabsi qabaa in dagaal xoogani uu ka dhaco Hudayda uu sababi karo in uu sameeyo shaqada dekada magaaladaasi. dekada magaaladani ayaa ah meesha uu inta badan ka soo dego gargaarka bini'aadanimo ee dalka Yemen. Yaasir Axmed Cabdullaahi Yaasir Ashka, muqbayaha caalamiga Somali News, gudaha caasimadda Hargeysa.